dowladda Itoobiya ayaa weydiisatay dalalka Soomaaliya iyo Djibouti inay faahfaahin ka bixiyaan qaraarka ururka jaamacadda Carabtu uu ka soo saaray khilaafka Masar iyo Itoobiya ee webiga Niil oo lagu garab istaagay dowladda Masar laguna cambaareeyay Itoobiya. labadan wadan ee Soomaaliya iyo Djibouti oo saaxiib dhow la ah maamulka ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee Abiy Ahmed ayaa kamid ahaa wadamada saxeexay ee u codeeyay qaraarkaasi. dalalkan oo qayb ka ah wadamada jaamacadda Carabta ayaa go'aankan taageeradoodu waxa uu ka cadhaysiiyay Itoobiya, waxaanay weydiisatay madaxda Djibouti iyo Soomaaliya inay faahfaahin ka bixiyaan qaraarka Itoobiya lagu cambaareeyay iyo doorkii ay ku lahaayeen. wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Geedu oo u waramay wargeyska The Reporter ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa ee Itoobiya oo uu soo xigtay wargeyska Geeska Afrika ee ka soo baxa Hargeysa ayaa sheegay in madaxda labada wadan ee Soomaaliya iyo Djibouti ay Itoobiya soo gaarsiiyeen dhambaalo ay ku sheegeen inkastoo ay qayb ka ahaayeen qaraarkaasi haddana ay u arkaan inaanu ahayn qaraar wax isu soo dhaweynaya. dhambaalo aanu ka helnay waxay Djibouti iyo Soomaaliya sheegeen in qaraarkaasi uu jaamacadda Carabtu ansixiyay aanu door xallin ah ka ciyaaraynin dhibaatada taagan, balse uu xaaladda sii xumaynayo. waxay noo sheegeen in dhibaatada aan lagu xallin doonin jidkaasi oo kale. waxaanan rumaysanahay in xubnaha kale ee jaamacadda Carabtu ay sidan oo kale yeeli doonaan. dowladda Masar oo leh awood diblomaasiyadeed ayaa waxa ay ururka jaamacadda Carabta ka ansixisay qaraar ka dhan ah Itoobiya oo dhawaan ka baxday wadahadaladii webiga Niilka oo uu Mareykanku dhexdhexaadinayay. dad badan ayaa aaminsan in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maalmo ka hor socdaal ku tegay Addis Ababa uu dowladda Itoobiya gaarsiiyay raarigelin ku saabsan doorkii ay ku lahaayeen qaraarkaasi. xiisada u dhaxaysa dalalka Masar iyo Itoobiya ayaa ku lug leh dhismaha dhaamka weyn ee Itoobiya ka dhalinayso korontada, kaasi oo muranka ugu weyn ka dhashay qaabka loo buuxinayo maadaama buuraha Itoobiya ee dhaadheer ka soo bilaabmo webiga Niil. dalalka ku tiirsan webiga Niil ee Suudaan, Itoobiya iyo Masar ayaa muranka xooggan u dhaxeeya, waxaana murankaasi dhexdhexaadinayay dowladda Mareykanka, balse heshiiskaasi oo gabagaba ku dhow isla markaana maraya heer saxiixida ayay dowladda Itoobiya ka cudur daaratay, waxaanay sheegtay inay ka tashanayso balse heshiiskaasi. qaraarkan ay labada dal ee Soomaaliya iyo Djibouti saxeexeen ayaa toddobaadkii hore ka soo baxay ururka jaamacadda Carabta, waxaana taageero loogu muujiyay dalka Masar oo xaruntiisa Qaahira ay fadhiistaan ururka jaamacadda Carabtu. Cabdikariim Saciid Saalax, Home Cable TV, Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.